بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan ahay libaaxii wadani tv oo muddo ismoogeydin oo ku maqnaa safar aad u dheer. waxaan ku soo laabtay ilaahay igu soo nabad celiyay dalkayga Soomaaliya maadaama ay idin sahan tagay oo aan soo eegayay bal Soomaalida ku nool adduunka oo idil xaaladooda sida ay ku sugan tahay inay ku wandaamaan dalka ku waraaboobay ee aqliga qoriga leh iyo islaynta ee xal kale aan hayn. waxaan ka bilaabay socodkaygii sida aad ogsoon tihiinba dalka Kenya xeryaha qaxootiyada kuwaasi oo aad u daldaraysnaa. waxaan maray meelaha raashimaha lagu qaato anigoo soo indhaynayay. waxaa ka muuqato nafaqa darro iyo aad raashin xumo ay ku eg tahay masago iyo saliid oo kaliya. waa ka muuraal xumaaday. waxaan sii aaday oo u sii ambabaxay halka iyo Yemen qaxootiga ku jiro. waxay aan ku samayn karaa waa cadaab adduunyo kuwaasaaba kaba sii daran kana rafaad badan kana dayactira xumaan. waxaan usii ambabaxay bal Liibiya iyo badda dheer ee Soomaalida ku dhamaatay inaan soo arko. waxaan tira ahaan soo helay inta la ogsoon yahay ee la tiriyay in ka badan 30,000 oo qof oo Soomaali ah inay badda haraqsatay oo leeftay oo dhinteen. aniga oo ilmada iga qubanaysa oo weli kasii diifaysan dhibaatadaas baa waxaan usii tegay Yurub inaan soo eego nolosha Soomaalida ku nool. waxaan arkay caruur iyo haween. waxaan arkay dayactiraysan oo aabahood uu fadhiyo kabadhada jaadka oo cayl un la sugayo oo lagula dagaalayo ku kala tageena. waxaan arkay wax rajaa kuwan inaysan kasoo muuqan oo yihiin kuwa naftoodu un daneeyay oon dadka laba danka lahayn. waan kasii tegay. waxaan aaday cariga Maraykanka oo nidhi Soomaalida ku nool inay dhaanto kuwan aad soo aragtid. waxay igu noqdeen kadar oo dibadal. waxaa arkay dhalinyaradan ku hanweynaa ee aan lahaa 20 sano ee dibadahan ku maqnaayeen ama ay ku dhasheen. waxay mar horeba diyaarinayaan jaamacadaha waa kuwa dalka wax u qaban doono oo kuwana aqliga ka sifayn doono dalkana u hiigsanayo oo aan aniga xataa rajada weyn iga jirtay. waxay noqotay inay yihiin kuwa drug iyo lagu xirxiray maxabsi iyadoo Maraykankana buuxiyay iyagoo lagu eedeeyay inay xataa haween ibsiga sameeyeen oo falxumo ah dhaqan Soomaaliyeedna ama lagu ogeyn xaalad noocaas inay gasho. waan ilmeeyay. waan iskaga soo laabtay aniga oo aan arkay iyo waxaan ku soo laabtay godkayga ay ugu taqaaneen ee igu yaalay Soomaaliya. waxaana doorbiday inaan ku dhinto halka oo aan ku dayactiroodo. waxaan go'aan ku gaaray ina Ilaahay halka ku sugan Ilaahay baryo Ilaahayna xal keeno. waxaan markiiba aan go'aan ku soo gaaray oo Ilaahayna iga aqbalay in ay iga aqbali doono hees xamari ah oo wadani oo aan sameeyay oo ay soo gudbinayo. waana sidan soo socoto heestani oo aan idinku luqeynayo. iga raali ahaada cod kuma lihi laakiinse waad garan kartaan macnaheeda. heestan waxaa la yiraahdaa oo ugu magac daray sida tan: dalkan hura dabkan hura dalkan gubanayo kuwa la doorsha ka darani. dabkan hura dalkan hura dalkan gubanayo kuwa la doorsha ka darani. kuwa la doorsha ka darani. dumar iyo caruur waa la tuufsadayo daroogay barteen. dumar iyo caruur waa la duufsadayo daroogay barteen. dibadaha qaraac damtiyeedha Soomaalida dagano loo dabagala
dibadaha qarax damtiyeedha soomaalatagano loo dabagalaa dabkaan huraa dalkan gubanayo waxaa kuwa la doorshaa ka darani dabkaan huraa dalkan gubanayo kuwa la doorshaa ka darani dariskiin cadaawa waaye diiwaanka adduunkey idinka daba jaraan dariskiin cadaawa waaye diiwaanka adduunkey idinka daba jaraan duqooy iyo dayarey damqoo damiir yeesha isku duumo oo darajadiisoo celiyay duqooy iyo dayarey isdamqoo damiir yeesha isku duumo oo darajadiisoo celiyay daa'im ilaahu dulligaan naga qaad dabiib dadkaygu diintaada ku dawee daa'im ilaahow dulligaan naga qaad dabiib dadkaygu diintaada ku dawee dalkaan huraa dabkaan gubanahay dabkaan huraa dalkaan gubanayo kuwa la tooshaa ka darani dabkaan huraa dalkaan gubanayo kuwa la dooshaa ka darani kuwa la dooshaa ka darani kuwa la dooshaa ka darani kuwa la dooshaa ka darani